hadla ina egar hadal maa la deyn karaa waxaan nahay bulsho hadal ku suntan oral society markay noqoto hadalka dadku waxay u qaybsamaan 3 qaybood dad waxgarad ah oo had iyo jeer ka hadla fikradaha wanaagsan iyo kuwa dhexe oo had iyo jeer ka hadla waxyaabaha qaar iyo kuwa ugu liita dadka oo had iyo jeer ku mashquula dadka kala ceebahooda isla markaana falanqeeya sirtooda haddaba saddexdaasi qolo adigu midkay tahay fadlan like share iyo subscribe noo saar youtube-ka Kamil Show hadal nin badiye ma wada oran nin yareeyeen waxba kama tagin xigmaduhu waxa loo qaybiyaa 10 9 waxa la siiyay qofka aamusan halka soo haraynay waxa la siiyay iska hadla ina egar hadal qootay qiimaha hadalku waa aamusnaan la yiri afdaboolan waa dahab luqmaan al-xakiimi oo ahaa nin xigmad badan ayaa nin uu shaqaale u ahaa hadda ka hor ka dalbaday inuu u gowraco neef isla markaana u dubo xubinta ugu fiican neefkaasi luqmaan wuxuu qaatay amarkii ninkii uu shaqaynayay wuxuu u dubay carabkii wayna wada cuneen maalintii xigtay ayaa isla ninkii wuxuu ka dalbaday haddana inuu u gowraco neef isla markaana uu dubo xubinta ugu xun neefkaasi isla carabkii ayuu u dubay markaasaa waxaa yaabay ninkii wuxuuna ku yiri shalay waxaad siisay carabkii maantana isla carabkii ayaad riblay iiga dhigtay maxaa ka qaldan mudane waxa uu jawaabay luqmaan carabku waa mindi laba af leh haddii aad wax wanaagsan u adeegsato waxaad ku mudan kartaa jannada haddii aad wax xun u adeegsatana waxaad ku mudan kartaa naarta waana qan Soomaali aabahay baa ka dhashay waxa inoo ballana hadal yar iyo howl badan